الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. waxaa walaalayaal in badan baraha bulshada ku faafa waxyaalo sawirro ah oo aad iyo aad u fara badan oo tusinaya dhaqan xumo islaamku uusan ogolayn, akhlaaqda wanaagsan aysan ogolayn, qiyamka iyo qofka jiritaankiisa wax u dhibahaya. waxaasi ha ahaadeen waxa weeyaan waxay gabdha faafiyeen ama wiilal ay faafiyeen. waliba dhaqanadaasi iyo sawirradaasi waxay tusinayaan waxyaalo anshax xumo ah oo aan fiicnay. gabdhaha waxa weeyaa muslimaadka ah oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala xishoodka iyo xijaabka uu amray in waxa weeyaan dhinaca dhalinyarada looga faa'iideysto in laga helo muuqaalo ama gabadhu ha ku dhiirata iyadu inay duubto ama wiilkuba si kale ha uga duubo, markaasna uu gabadhii waxa weeyaan muslimadda ahayd sawirkeeda uu hayay oo ku xukumo oo uu kaga faa'iideysto uu yiraahdo hadaadan waxaan raba aadan ii yeelin waxaan faafinayaa sawirkii aan ka qaaday ama sawirka ii soo dirtay baan faafinayaa. oo ayaduna markaas waxa weeyaan dacfil iimaan haya iyo daciifnimada iimaankeeda laga yaabo inay u dhaga nuglaato warkiisa ayadoo is oranaysa sawir yuusan ka faafin xun, markaasna rabitaankiisa u yeesho. halkaasna awal sawir la qaada kaliya buu ahaa arinku, laakiin faaxisho iyo xumaan ay ka dhalato. halkaas ay ku weydo gabadhii muslimadda ahayd inanimadeedii ay ku weydo. arinta iyada waxa weeyaan waa arrin khatar ah. mas'uuliyadna ay ka saaran tahay aabayaalka iyo hooyooyinka iyo gabdhaha laftigooda naftooda iyo wiilasha intaba. waxaan leeyahay wiilasha dhalinyarada ah oo gabdho waxa weeyaan sawiradood badan helay oo gacanta ku haya ama waxa weeyaan gabdhuhu ha u soo diraan ama ayagu ha ka qaadeen, Ilaahay ka baqa oo gabadha muslimadda ah hadaad faafisaan wax aad ka haysaan oo bulshada aad soo dhigtaan, ogaada qof kasta oo daawada qofka muslimka cirdigiisa aad baahinaysaan, qof kasta oo daawada dambiga uu ka arkahayo iyo fiirsanahayo idinka ayaa taxamulaysaan. ogaada waa dambi weyn oo fara badan weeye. ogaada qofkii muslimka cirdigiisii ayaa hal mar waxaad ku fasaxdeen boqolaal malaayiin bashar ah inay adduunyada daafaheeda ay daawadaan. dambiga halkaa ka dhalanahaya wiilka faafinahaya ayaa qaadahaya. ogaada waxaa faafinaysaan waa wixii nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam, man satara musliman satarahu Allah. qof muslima qofkii astura oo u ceeb qariya Ilaahay ba astura. Ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu kugu ciqaabi karaa fadeexadaada inuu adigana banaanka soo dhigo oo ceebtaada la faafiyo ayaa Ilaahay kugu ciqaabi karaa. wiilka dhalinyarada ah oo gabadha waxa weeyaan sawirkeeda haysta oo ku dhiiranaya inuu faafiyo, Ilaahay ka baq. waxaa imaan karta maalin maalmaha kamida adigana sidaas oo kale inay kugu dhacdo, xaaskaaga inay ku dhacdo, gabadhaada inay ku dhacdo, cuquubo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala xaqiisa kaaga timaada hadaad ku dhiiratay ina gabadha muslimadda afaafis. waxa afaafinaysa waa faaxisho. nabiguna wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam, kullu ummati mu'aafan illa almujaahiriin. ummadayda dhamaanteed waa la cafiyaa ilaa qof xumaanta iyo fisqiga la jahraya mooyaane. gabadhii muslimadda ahayd wixii aad ka qabatay oo waxa weeyaan cawradeedii ahaa hadaad muslimiintii u soo bandhigtay, waxaa tahay qof la jahraya, xumaan la jahraya tahay, khatar ayaana ku jirta. Ilaahay ka cabso. gabdhaha muslimaadka ah oo iimaankoodu daciifay oo gaaray inay nin ajnabi ah sawirkeeda u dirto oo ay mataqaana u tuurto oo u haysata maxabba iyo jacayl inuu daa'im noqonahayo ama sidaa u jeclaanahayo, waa inaad ogaataa dabin ayaad ku dhacday. haddii shala aad ku dhacday oo daraad aad ku dhacday oo maanta aad ku dhacday, Ilaahay ka cabso oo sawirkaaga jooji oo nin ajnabi ah ha u dirin oo waxa weeyaan iska daa sawirkan aad iska qaadaysid ama asagu ka qaadahayo. gabdho badan baa markii la guri geeyay, habeenkii la guri geeyay waxa loo soo tuuray nimankii aroosay sawirro ay la galeen nimanka iyaga oo kale ayagoo ku xumaynahaya oo gurigeeda duminahaya. zawjkuuma aha dhalinyaradan jaamacadaha lala dhigto iyo dhalinyaradan beeraha lala fariisanahayo aswaajtiini ma aha. Ilaahay intaa ka cabsataan oo xishootaan ilaashada. waad arkaysaan waxa baraha bulshada yaala oo xumaan iyo fisqi ah oo gabdhihii laga faafinayo. ilaasho waxa weeyaan sawirkaaga oo yaan sawir laga qaadin
adiguna qofna ha u ogolaanin gabar saaxiib aad tihiin ha u dhiibin maxaa yeelay wiil kale u sii gudbinaysaa asaguna mid kale u sii gudbinaya daminka lagu qoolay baad ku dhacaysaa arrinka isaga ka digtoonow xishoodkii islaamku ku amray la imow oo ilaahay ka cabso subxaanahu wa ta'ala hooyooyinka waxaan leeyahay ya aabayaalka gabdhihiina wacyi geliya gabdhahaasi guryay ka yimaadeen sawirada laga qaadahayo oo waxa weeyaa sida loo baahinahayo wacyi geliya oo diinta ilaahay bara oo khayrka iyo madaarista geeya oo khayrka dhageysta dhaha oo arrinkan xumaanta uu leeyahay dareensiiya gabdhihiina rag waxaa jira ayaguna ka ganacsada oo ka shaqaysta inayba duubaan aflaamta xunxun inay aruuriyaan oo duubaan oo waxa weeyaan youtube soo dhigaan oo sidaas business iyo lacag uga raadinaya oo kullama dad badani u daawadaan xumaantaas waxa weeyaa ayaguna dhaqaale ka sameynahaya oo ka dhex arkay inay dhaqaale ka sameyn karaan cawraadkaas dadka muslimiinta ah inay waxa weeyaan baahiyaan oo ay faafiyaan kuwaasina waa cadow waxay qaadanayaanna waa xaraam waxaan leenahay ilaahay ka cabsada kasabkaas aad ka shaqaysateen iyo dhaqaalaha aad ka hesheen waa kasab xaraam ah wax laga shaqaysta ma aha gabar muslimada cawradeed wax laga raadiya maahan war ilaahay ka baqa oo xaraamta ilaahay uga toobad keena oo intayna idinku imaanin geeridu ilaahay u laabta oo maalka xaraamta ka jooga ilmihiina ku korsanina idinku ha cunina gabar muslimada cawradeeda dhaqaalaha ka raadinina ilaahay rizqi xalaal oo kala haydin siiyo dhammaanteen allah ina hanuuniyo wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in